waa casharkii soddonaad ee taxaaniheenii barashada luuqadda carabiga. waxaynu ka bilaabi doonaa boga 68 alxiwaaru alxaadi walarbacuun wada sheekaysiga 41aad sabax alkhayr subax wanaagsan sabax annuur subax wanaagsan limaada waqafta maxaad u istaagtay amaamii hortayda uriidu waxaan doonayaa an atanaawala macaka inaan kula qaato xewaaran wada sheekaysi maa huwa alxiwaar waa maxa wada sheekaysi alxiwaaru wada sheekaysigu huwa waxa weeye tabaadul as'ila iswadaarsiga su'aalaha wal ajwaba iyo jawaabaha alxiwaaru wada sheekaysiga huwa tabaadul as'ila waa iswadaarsiga su'aalaha wal ajwaba iyo jawaabaha ayu mawduucin mawduuceeba tashtaaqu aad jeceshahay tashtaaqu ilayhi aad u riyaaqdaa fii hada almasaa galabnimadan ashtaaqu waxaan u riyaaqaa oo aan jeclahay an nataxadasa inaynu ka hadalno can illuqati alcarabiya luqadda carabiga maa hiya luuqa waa maxa luuqad awalan ugu horeyntii alluuqa luuqaddu waxay tahay aswaatun codad yucabiru biha ay ku cabiraan ama ay ku tilmaamaan ama ay ku qeexaan kullu qowmin qolo weliba can aqraadihim ujeedadooda hal ilcarabiya luqadda carabiga luuqatun qadiima ma luuqad horeba ma luuqad soo jireenaha nacam haa inahaa luuqatun waa luuqad cariiqa oo soo jireen ah alcarabiya luqadda carabiga walinjiliisiya iyo ingiriiska ayuhumaa keeba afdalu fiican alcarabiya luqadda carabiga ayaa axsanu ka fiican min alinjiliisiya luqadda ingiriiska bal wasaa'ir luuqaad waxay ka fiicantaa sidoo kale luuqadaha kale walimaada faaqad maxay u sara martay walimaada faaqad maxay ugu sara martay ama ay ugu fiicnaatay alcarabiya luqadda carabiga calaa saa'iri luuqaad luuqadaha kale ikhtaarahaa waxaa doortay khaaliqu lalsina alle wamadaxahaa waxaanu ku ammaanay fi lqur'aani qur'aanka wa qaala waxaanu yidhi alleh bilisaanin carabiyin mubiin qur'aanka wuxuu ku soo degay carabi waadixa oo cad alxiwaaru athaani walarbacuun wada sheekaysiga 42aad maa duunta annaka inkastoo adiga rafiiqii alqaali ataa saaxiibkay ugu dheer oo qaaligu ah awuddu waxaan jeclahay fii haada alyowm maantay an taduura baynanaa inaadna dhex dhigto mudaacaba kaftan kayfa taraa daalika arrinkaas sideebaad u aragtaa araa daalika arrinkaa waxa u arkaa dariica isku hadlayn litanaadux ishardin watadaabur iyo kala tag watadaabur iyo kala jeedsi walaa waafiquka mana kugu raacayo calaa haadaa arrinkan raqma annaka inkastoo adigu rafadta aad diiday kulla rafdi diidma adag faclam ogow ana almudaacaba kaftanka bayna alasdiqaa ee ka dhexeeya saaxiibada tajlibu lahum inay u keenayso inay u soo jiidayso almawadda kalgacayl wa tasiidu oo ay kordhinayso atacaaruf isbarashada baynahum ka dhexaysa wa abaaxa lanaa waana uu noo banneeyey alislaamu islaamku yaa sadiiqii saaxib alaa taclamu miyaadan ogeyn ana almudaacaba kaftanka tasracu inay beerayso abuurayso alcadaawa cadowtinimo wa tanbutu oo ay dhalinayso alxiqda xaasadnimo bayna alasdiqaa saaxiibada dhexdooda wa taqtacu oo ay jarayso oo ay goynayso alikhaa walaaltinimada wa tajlibu oo ay soo jiidayso
وأي كينيسو البغضاء عرو وتسبب وأي سببيسو وأي دلينيسو الشتائم عاي أقول لك عن كليهاي كف كجوكسو عن هذا أرنكان بأسره لمانتي زميلي عفوا إقرأ للنقو لا أداعبك كلما كفتميو بعد هذا اليوم ما أنت كذب لأنك محايا لادقة أصبحت وحد نقطي تفكر إن أدو فكريسو كالأطفال سيد عروتي أو كلا ولكن اعلم وحد وقتا أن الإسلام إسلامك عندما أباح مركب بني المزاح كفتنك والمداعبة واسكمد لبدا إري كفتنك لم يقصد موسى نولجيدين بعض الأساليب نوعية قاركود المنتشرة يكوبهاي في مجتمعنا بلشدنا مثل سيدا الصب عايدة والسخرية جاسكا وإنما أباحها وحوب بني لترويح النفس نفتين يكون نفسه قليلا إنير أخي الفاضل ولال ليس الأمر أرنكمها كما تظن سيدات سوري سنيسو سيدات ملاينيسو وشكرا وأدنا ما سنتاي intaa waxaa noogu geeday cashirkii soddonaad ee taxanaheenii barashada luuqadda carabiga tan intaynu ku kulmi doonno casharka 11 inta ka horeysa amaana alle